بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo dunida aad ka joogtaan ba Allah awoodda la dhamaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka sanfareenka ee coronavirus-ka fayrasyadiisa kala duwan meel kastoo dunida aan ka joognaba waa maalinimo talaada ah 23 bisha February 2021 cudurka coronavirus-ka waa uu ka jira adduunyada guud ahaanba laakiin meelo badan ayaa loo arkayaa xaaladdu inay wanaagsanaanayso iyadoo ay soo yaraanayso tirada cudurka uu ku dhacayo iyo tirada markaa ay u dhimanaysa laakiin la arkayo wadamada qaar sida Mareykanka iyo weliba Brazil in weli arrimuhu ay cirka isku sii shareerayaan marka la fiiriyo dadka ka dhimanaya iyo guud ahaanba dadka dhibaatooyinku ay ka soo gaarayaan cudurkan coronavirus-ka iyo saameyntiisa mar hore iyo mar dambaba UK markaynu ku bilowno oo kamida meelihii sida daran amaba sida ba'an uu saameynta ugu yeeshay mawjadii koowaad iyo mawjada labaad ayaa iminka u muuqanaysa maalmihii ugu dambeeyay in arrinku uu wanaagsanaanayay taasoo loo tirinayo tirada dadka laga arkayay inuu ku dhacayay ka hooseeyeen iyo weliba mararka qaar tirada dhimashadu inay ahayd mid si isdaba jooga u soo yaraanaysay iyo weliba dadka cudurku waa siibaya isbitaalada la geynayo iyagana tiradoodu ay yaraatay barnaamij ayaa jira loo ballansanaa maalintii shalay ee isniina 22 bisha oo ra'iisul wasaare Boris Johnson uu hortagay baarlamaanka uuna ka sheegay qorshaha ballaaran ee uu ku doonayo in lagu yareeyo guud ahaanba xanibaadii ka jirtay meelo badan oo UK kamida iyo weliba gaar ahaan England arrintaas ayaa waxaa la sheegay in loo qaybiyo 4 qaybood oo isdaba socota oo ujeedku uu yahay in xanibaadda lagu yareeyo ama lagu soo hagaajiyo iyadoo muddaba la kala xiraa maadaama cudurka halistiisu ay aad u baanayd waxaa la eegay sida ra'iisul wasaare Boris Johnson uu ka dhawaajiyay barnaamijka ay soo gudbinayeen mar walba qoryaha dhaqaatiirta iyo saynis yahanada kaasoo ah midka la raacayay taasoo loo arkay tirada cudurka dadka inay ahayd mid yaraatay kadibna qorshahan la bilaabay ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu ka dhawaajiyay 8 bisha Maarch ee soo socota gabi ahaanba iskuulada kala duwan ee England in la furayo oo muddo xiraa taasoo loo arkayo inay tahay mid ardaydu ay ku farxayaan mar haddii dugsiyada hoose iyo kuwa sare ee qaybaha kale ee waxbarashada dhammaantoodba albaabada loo furi doono waxaa la sheegay in loo baahan yahay iskuulada marka la furo in tijaabooyin laga qaado ubadka mar walba oo la eego inay cudurka qabaan iyo in kale hadday tahay xagga guryaha iyo xagga iskuulada iyadoo aad loo feejigan yahay oo la is ilaalinayo laakiin ururka ay leeyihiin qolyaha dhinaca macallimiinta iyo weliba horjoogayaasha iskuulada ayaa waxa ay sheegeen 10 milyan oo arday oo mar qura iskuulada ku laabanaya iyo shaqaalihii waxbarashada oo tiradoodu iyaduna ay tiro kala tahay inay taasi keeni karto culays xoog leh laakiin haddana ay tahay in la dadaalo waxaa sii xiga barnaamijyo kale oo loogu talagalay isla bisha Maarch aakhirkeeda in lagu furfuro arrimaha dadka isu imanaya meelaha dibadda ah ilaa 6 qof iyadoo weliba la sheegay bisha Abriil marka la gaarana dukaamada aan muhiimka ahayn ee waxyaabaha kala duwan lagu iibiyo iyaga laftooda in markaasi la furi doono taasoo si tartiib loo eegi doono sida uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaare Boris Johnson qolyaha caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen kalsooni buuxda inay ku qabaan marka la fiiriyo tirada soo yaraanaysay xagga cudurku dadka uu ku dhacayay iyo tirada u dhimanaysay taasina ay keentay midda ah in arrimahan sahlanaanta ah uu markaa ka dhawaajiyo ra'iisul wasaare Boris Johnson marka haddaba la fiiriyo guud ahaanba UK maalmihii ugu dambeeyay tirada dhimashada waxay ahayd mid aad u soo yaraanaysay jimcihii marka la fiiriyo dadka guud ahaanba la sheegay inay dhinteen 553 ruux maalintii sabtidii ee xigtay waxaa la sheegay tirada dhimashada 445 maalintii xigtay ee xaddii waxaa lagu sheegay tirada dhimashada UK 215 maalintii shalay oo isniinna tirada dhimashada waxaa lagu sheegay 178 taasoo markaa sheegaysa in dadka cudurka u dhimanayay aad u soo yaraanayeen tiradoodu guud ahaan UK dadka cudurka uga dhintay maalinku bilowday ilaa maalinka maanta ah waa 120,757 ruux marka la fiiriyo wadamada dhinaca warshadaha hore uga maray ee lagu magacaabo G7 ayaa si muuqaal ah hogaamiyaashooda waxa ay kulan ugu yeesheen dhinaca muuqaalka iyadoo ay 7 wadan ee joobkooda buuran yahay ay ka arrinsadeen arrimo badan oo ay kamid ahayd sidii wadamada liita ee joobkooda aanu buurayn looga kaalmayn lahaa dhinaca talaalada iyo lacagaha lagu iibinayo gaar ahaan iyadoo la soo qaaday ama la magac dhabay qaaradda Afrika madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo barnaamij lacaga oo markaa la doonayo in talaalada loogu iibiyo wadamadaas Afrikanka iyo kuwa kale ee liita madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna ka dhawaajiyay reer Yurub iyo Mareykanka in looga fadhiyo
in ay saacidaan dadka Afrikaanka marka la fiiriyo xagga tallaalada. Waxaa wararku ay sheegayaan Afrika wadamo ka mid ah inay bilaabeen tallaalka, laakiin intooda badan aanay bilaabin, ay u baahan yihiin in laga kaalmeeyo, iyadoo dadka cudurka uga dhintay qaaradda Afrika guud ahaanba ay kor u dhaafeen 100,000 oo ruux, laakiin ay rajaynayaan in wadamada joobkooda uu buran yahay ay ka kaalmeeyaan guud ahaanba reer Afrika tallaalada kala duwan si markaasi cudurka looga hortago. qaaradda Afrika ayaa waxaa jira wadamo iyagu tallaalka bilaabay oo heshiis la galay shirkadaha kala duwan, sida waddanka South Africa lafahantiisa, waddanka Algeria marka la fiiriyo, dalka Morocco, dalka Masaarida, Mauritius, Seychelles iyo meelo kale, iyadoo shirkadaha heshiiska ay la galeen ay ka mid yihiin Pfizer iyo BioNTech iyo weliba AstraZeneca, Sinopharm iyo weliba Sputnik. guud ahaan waxaa la filayaa qaaradda Afrika inay hesho tallaal ku habboon, iyadoo mid ka mid ah shirkadaha dhinaca isgaarsiinta iyo taleefanada gacanta ee qaaradda Afrika oo iyadu ku deeqday ururka midowga Afrika adduunan $25 milyan oo dollar, taasoo macnaheedu uu noqonayo in lagu soo iibiyo ilaa iyo 7 milyan oo doos oo tallaal ah oo la doonayo dadka Afrika qaarkood in lagu tallaalo. haddii ay suurtagal noqoto wadamada Yurub iyo Mareykanku inay lacago fara badan ku bixiyaan sidii loo tallaali lahaa dadyowga qaaradda Afrika, taasi ayaa waxa ay muujinaysaa yididiilo xoog leh oo ah in qof walba oo adduunka ka tirsani uu tallaal helo. waddanka Australia ayaa waxa ay bilaabeen iyaguna istillaalidii marka la fiiriyo dhinaca Pfizer iyo BioNTech iyo weliba shirkadda AstraZeneca oo la ogolaan doono dalka Australia. maalintii Axaddii ayaa waxaa la dheehday ra'iisul wasaaraha waddanka Australia Scott Morrison oo tallaalkii koobaad amaba dooskii koobaad qaadanayay, taasoo ka dhignayd inuu u muujiyo bulshada reer Australia in si nabdoon tallaalku uu yahay muhiimna uu yahay guud ahaanba bulshada reer Australia. maalinkaas Axaddii waxaa kaloo la tallaalay ninka madaxda ka ah dhinaca kalkaaliyayaasha caafimaadka oo isaga lagu magacaabo Alison Macmillan iyo weliba ninka kale ee dhinaca daawooyinka agaasimaha ka ah oo isagana lagu magacaabo Paul Kelly. wasiirka caafimaadka ee dalka Australia Greg Hunt ayaa isagana la filayaa inuu qaato tallaalka maalmaha soo socda, taasoo dadkaas istallaalaya ee dhinaca caafimaadka ugu sarreeya iyo ra'iisul wasaaruhu ay tusaale u noqonayso dadka reer Australia guud ahaanba in lagu gubaabiyo tallaalka inay qaataan, muhiimadiisana la tuso. banaanbaxyo tallaalka lagu diidan yahay ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka dhaceen magaalooyinka Melbourne, Sydney iyo Brisbane, taasoo ay dadkii mudaharaadayay iyo boolisku ay isfara saareen, ayna keentay dhowr qofood in la xiro magaalada Melbourne, dad kalena markaasi ganaax la saaro kadib markii loo arkay in ay ku xadgudbayaan nidaamka isu soo bixidda iyo qaabkii loo doorayay. waddanka Australia waxa uu ka mid yahay wadamada cudurku saameynta uu ku yeeshay, laakiin si ba'an aanu u dhibaataynin. qofkii ugu horreeyay ee tallaalka qaatay waxay ahayd haweeney 85 jir oo lagu magacaabo Jane Malsiak, taasi oo ahayd qoftii koobaad ee tusaale u noqotay bulshada reer Australia inteeda kale. reer Australia maamulayaashooda caafimaadka waxa ay ka dhawaajiyeen inay u qorshaysan tahay in ilaa iyo 4 milyan oo reer Australia la tallaalo tan iyo dhammaadka bisha Maarch ee soo socota. Pfizer waa la ogolaaday tallaalkeeda dalka Australia, maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in la ogolaado AstraZeneca iyo Oxford jaamacadda ah tallaalka ay soo saareen, taasoo ka qayb ah shirkadaha tallaalka ee Australia heshiiska ay la gashay. guud ahaan Australia waxaa lagu sheegaa dadka cudurku uu saameynta ku yeeshay 29,000 oo ruux, iyadoo dadka ka dhintay Australia ay yihiin ilaa iyo 909 ruux. haddaba adduunyada marka la fiiriyo guud ahaanba cudurka coronavirusku saameynta uu ku yeeshay wadamadu way kala badsadeen xagga soo ridashada iyo weliba xagga dhimashada. waddanka Mareykanka 500,000 oo ruux ayuu cudurku ka dilay waa coronaviruska, dadka uga dhacayna waxay kor u dhaafeen 28 milyan oo ruux. dalka Brazil cudurka coronaviruska waxa uga dhintay 246,000 oo ruux. waddanka Mexico cudurka coronaviruska waxa uga dhintay ilaa iyo haatan 180,000 oo ruux, dad ka badan. waddanka Hindiya cudurka waxa uga dhintay dad ka badan 158,000 oo ruux. waddanka UK oo waddanka shanaada cudurka waxa uga dhintay ilaa iyo haatan 120,757 ruux. waddanka Talyaaniga ayaa kaalinta 6aad 94,000 dad ka badan ayaa uga dhintay. waddanka Faransiiska ayaa kaalinta 7aad 84,000 dad ka badan ayaa uga dhintay.
waxaa xiga waddanka Faransiiska, dalka Ruushka 83,000 dad gaaraya ayaa uga dhintay. waddanka Jarmalka ayaa ku xigay 68,000 dad ka badan ayaa uga dhintay coronavirus-ka. waddanka Spain 67,000 dad ka badan ayaa uga dhintay cudurka. waddanka Iran 59,000 dad ka badan ayaa uga dhintay cudurka. waddanka 12aad ee adduunka cudurka coronavirus-ka dadka uga dhintay ay badan yihiin waa waddanka lagu magacaabo Colombia oo ka mid ah wadamada Latin America. 57,000 oo ruux dad ka badan ayaa uga dhintay. adduunyada guud ahaanba marka la fiiriyo cudurku waxa uu saameyn ku yeeshay 111 milyan oo ruux, iyadoo la sheegay inay ka caafimaadeen ama ka badbaadeen cudurku markuu ku dhacay adduunyada oo dhan 62 milyan oo ruux. laakiin dadka uu galaaftay ee aan ka soo kicinay cudurka u dhintay adduunyada waxaa lagu sheegaa ilaa 2,250,000 dad ku dhow. guud ahaan tallaaladii ayaa ka socda meelo badan oo dunida ka mid ah. xanibaadii waa ay ka jirtaa meelo badan oo dunida ka mid ah. marka labadaa la eego ayaa waxaa loo arkayaa in tiradu ay soo yaraanayso. wadamada qaboobuhu ka jirana ay qaboobga ka baxayaan qiyaastii 2 bilood iyo wixii ka dambeeya, taasoo markaa fursad noqon karta ah. guud ahaanba fayraska asal ahaan ka bilowday Wuhan December 2019 iyo kuwa laga arkay Brazil, UK iyo South Africa intuba ay noqon doonaan kuwa markaa yaraada. dhinaca kalena tallaaladu ay wax ka taraan guud ahaanba noocyada kala duwan, iyadoo weliba UK ay noqonayso waddankii ugu horreeyay ee bini'aadamka ku eega fayraska si loo helo tallaalka saxda ah iyo daaweynta saxda ah intaba. fariintan iyada ah waxaad heshaan toddobaadkiiba 2 maalmood, maalin walba oo Talaada oo maanta oo kale ah iyo maalin walba oo Jimco ah haddii Allah awoodda leh uu ogolaado. marka haddaba aynu fiirino fariinta waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK. xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton, halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmed Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan laysaga daabulo alaabooyinka haddaad diraysidii haddii lagu keenayo intaba. ganacsade Axmed Barqadle waxaa kaloo uu bulshada u hayaa guud ahaanba taleefanada noocyada kala duwan ee kuwii ugu dambeeyey iyo cunooyinka kala duwan, waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949512877. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida, waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada eebada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan, iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badino nadaafadana aan ku dadaalno. maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus-ka oo idin leh annagoo kariimkeenna kaashanayna kaalinteenna aan ka qaadano ka hortagga coronavirus. maasha Allah.